muuqaalka wuxuu noqday sidaad arkaysaan gabadhii waa ka iyadoo dabka ku dhex socota. gabadhii waatan kaamiristaha wuxuu leeyahay dhulka igu qabo oo tus dhulkan inuu yahay waa ka dhulkan inuu yahay dhulkii sanadii 1967 aynu ka qabsanay carabta. assalaamu calaykum kulanti wanaagsan. maanta wararka adduunka oo dhan waxaa haysta madaxweynaha Faransiiska Macron iyo xaaskiisa oo iyagoo isdagaalsan ka dagay Vietnam. laakiin waxaynu ku hormari doonaa xaaladda magaalada Gaza. run ahaantii xaaladda magaalada Gaza saakay arurnimadii hore Israa'iil ayaa waxay duqeeyeen xarun dad qaxooti ay ku yihiin gaar ahaan meel iskuul ah. Israa'iil ayaa waxay si kas iyo maag u duqeysay halkaasi dadka qaxootiga ay ku sugnaayeen. marka waxyaabaha mucjisada ama cajiibka ah muuqaalkaasi lagu dhex arkay waxaa ka mid ahaa gabar yar oo dab ku dhex ordaysa iyada oo markaasi ka soo ordaysa dabkii halkaasi ka dhacay. gabadhan ayaa aakhirkii iyadoo bad qabta la helay, laakiin waxaa halkaasi ku geeriyooday dhammaan waalidiinteedii walaalaheeda. iyada oo bad qabta ayaa markaasi ciidamadii gurmadka ka soo saareen. laakiin muuqaalka wuxuu noqday sidaad arkaysaan gabadhii waa ka iyadoo dabka ku dhex socota. arrinkaasi oo noqotay wax ay markaasi ku maadeystaan warbaahinta Israa'iil oo waxay leeyihiin iska caabinta Falastiiniinta sida ay carruurteena u laayeen si ka daran waa inaynu u layno. arrinkaas oo xitaa dadka badankooda ka sii caraysiisay. gabadhii muuqaalkeedii waa tana oo markaas iyadoo lasoo badbaadiyey. gabadhii waa tan aabaha awaa leeyahay, hooyada aabahay halkaas ku jira ay taaganta dabkaas holcaya aad arkayseen ayuu ku jira ay leedahay. marka gabadhan iyadana alla weyne subxaanahu wa tacaala ayaa soo badbaadiyey. run ahaantii xaalad aad u daran ayay gabadhan ka soo badbaaday. Israa'iil duqeyn ba'an ayay u geysatay goobtii. gabadhiina waalidkeeda iyadoo u jeeda ayay dabkii ku soo dhex lugaysay. hooyadeed, aabaheed, walaalaheeda oo gubanaya. run ahaantii waxay noqotay wax xitaa dadkii aan muslimiinta ahayn inay yiraahdaan aaway dadkii carabta ahaa ee dadkan ay wada dhasheen, aaway dadkii muslimiinta ahaa. ilaa ay hadda lama arko dowlado islaami ah oo ka falceliya oo dhahaya xitaa Israa'iil xiriirkii diblomaasiyadeed aynu lahayn waynu joojinay, oo ay ka mid tahay Imaaraadka. arrinka ugu sii daranba oo saakay la arkay oo ilaa ay 23 bishan la arkay waxay ahayd qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil ee loo yaqaan Golani oo tababar ku siiraya Morocco, ciidamo ka tirsan wadankaasi. waxay markaas la arkay ciidamadaasi oo meel gudgalaya sidaas oo kale tababar siinaya qaar ka mid ah ciidamada Moroccanka ah. waa ciidamada Israa'iil ee Golani ee loo yaqaan laakiin la baxay cutubka Afrika. run ahaantii Israa'iil iyo Morocco xiriirkooda wuxuu dib u soo wanaagsanaaday heshiiskii lagu magacaabay Ibraahimiyada ee 2020 dhacay markaasi u dhaxeeyay wadamada khaliijka qaar ka mid ahaa. laakiin arrinkaasi waxay tuhun weyn ku abuurtay hadda howlgalkan tababarada la arkayo ee Morocco iyo ciidamada Israa'iil ka fulinayaan gudaha wadankaasi. tuhun weyn waxay ku abuuraysaa Spain oo aan la socono inay garab istaagtay iska caabinta Falastiiniinta oo ay tiri waan aqoonsanayaa, sidaas oo kalena xiriirka u jartay guud ahaanba Israa'iil. marka run ahaantii dhacdadii saaki ka dhacday gudaha magaalada Gaza waxay ahayd arrin la yaab leh oo ilaa iyo hadda wadamadii carabta guud ahaanba mid ka hadlay ama dunida islaamka aysan jirin. waa dunidii islaamka oo dhan mid ka hadlay ma jirto. Dere Suites waa dhismo si casri ah loo dhisay. Dere Suites waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto. sidaas oo kale qaar ka mid ah apartmentyadani waxay leeyihiin double masters room. haddaba Dere Suites waa another level apartment. wuxuuna ku yaalaa wadada Jayga Airportka ama dhabarka dambe ee Turkish Macaarif School Expol Technico. wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya. dhanka kale daqiiqado ka hor Ofarki Netanyahu ayaa muuqaalkan bartiisa X soo dhigay, waliba isagoo ku jejeysaya muslimiinta. kaamiristaha wuxuu leeyahay dhulka igu qabo oo tus dhulkan inuu yahay waa ka dhulkan inuu yahay dhulkii sanadii 1967 aynu ka qabsanay carabta. godkan aad u jeedaan ama tunnelkan uu Netanyahu ka soo muuqday waa magaalada Qudus ee gaar ahaan Masjid al-Aqsa hoostiisa.
Israa'iil ayaa sanadaasi 1967 wixii ka dambeeyay waxay sheegaysay inay halkaasi ka baadigoobayso mucjisooyin xagga rabbaani ah Masjid al-Aqsa hoostiisa. hadda marka waxaa laga cabsi qabaa masjidkii lafaantiisa inuu burburo maadaama Israa'iil tanala ay ka qoday oo ay leedahay waxaynu baaraynaa mucjisooyin iyo taariikh yani horey u soo maray dadka Yuhuudda. marka hadda muuqaalkan wuxuu ku soo aaday Israa'iil ciidamadeeda oo maalinkii saaki aroornimadii hore duqeyn arxan dara ah ka geystay gudaha magaalada Gaza. muuqaalkii aad arkayseen gabadhii yareed oo dabka ku dhex ordaysa ayaynu arkaynay. marka hadda waxaa la marayaa in iyagoo la jejeysaya jeebka gacmaha lasoo gashtay laleeyahay waa halkii aan ka qabsanay carabtii 1967 ayaan taaganahay. waa meel mucjiso ah. marka heerkii ugu darnayd ayuu oofaarkii Netanyahu marayaa. war ninkaa markaa idin lahaa waa oofaar weyn cidii aaminaysa malaha laakiin ninkaa nin qof qaban kara ayaa la la'sanyay. wadamadii reer galbeedka xitaa ayaa ilaa iyo hadda ninkan qaban la'san. maraykankii sidaasi oo kale yani waxay wada jilayaan ruwaayad ah kir iyo car iyo wir oo been ah. dhanka kale saakay baraha bulshada waxaa haysta madaxweynaha Faransiiska oo xaaskiisa ay wajiga ka riixayso ayaa la arkayaa markii ay diyaaradda ka soo degayeen gaar ahaan wadankaasi Vietnam. arrinkaasi ma ahan arrinka kaliya ee markaasi ceebta ku abuurtay madaxweynaha Faransiiska. waxaa la arkayaa isaga iyo iyada markay soo wada degayaan oo kabtankii diyaaradda ay salaamaan isagii wuxuu isku diyaarinayaa inay gacantiisa ay qabsato laakiin waa ay ka mayal adeegaysaa oo si bareer ay u diidaysaa isagana oo weliba gacantii u sii diyaarinaya. muuqaalka fiirso si degan wuxuu u diyaarinayaa gacanta saad u jeedaan iyadina waa ay diidan tahay. waxaa la arkayaa isagoo gacantiisa u laabanaya ma wuxuu doonaya inuu feer ku dhufto laakiin arrinkaasi way ka hadleen. madaxtooyada Faransiiska waxay sheegeen wax iska caadi inay tahay. markii koowaad waxay sheegeen in waxaan video yani lagu sameeyay artificial intelligence lagu sameeyay laakiin daqiiqado kadib waa ay tirtireen. marka run ahaantii Macron yani dhowr jeer oo horena waa loo arkay isaga iyo xaaskiisa. waa islaan aad ugu weyn run ahaantii weliba maclimad u ahayd. muuqaalkan aad arkaysaan waa xilligii ay maclimada u ahayd isaga. maantana waxaynu u jeednaa iyagoo wada socda oo ay leeyahay waa xaaskaygi. marka baraha bulshada run ahaantii muuqaalkan ayaa qabsaday oo ceeb weyn ku ah Faransiiska oo la leeyahay ninkii Macron ahaa dhiiqa ayuu lugaha kula jiraa. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa. fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xidhi +252 Dheere Suits waa dhismo si casri ah loo dhisay. Dheere Suits waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto. sidaas oo kale qaar ka mid ah apartmentyadani waxay leeyihiin double master's room. Dheere Suits waxay awood u leedahay inaad iibsato ama aad kiraysato. haddaba dadka iibsada ama kuwa kiraysanaya waxaa loogu talagalay adeegyo si lacag la'aan ay ku heli karaan sida cafe shop, qolka shirarka, meel carruurta ay kugu ciyaaraan oo ammaan ah, mini theater, qolka daabacaadaha, qolka jimicsiga, sauna ama xamaamka maqribiga. CCTV camera ayaa guriga meel walba kaga xiran oo yaanan hilmaamin 2 baarkin oo waasica ayuu leeyahay dhismahani. haddaba Dheere Suits waa another level apartment wuxuuna ku yaalaa wadada Jayga Airportka ama dhabarka dambe ee Turkish Maarif School Expo Technico. wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya.